السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركي قاركود مثلا تاينا إن الله شاء الله هاي نقول ديلي تران واتسبي أتكرر تين يسكوت ديلي تران تام بيسكو ميسان تان يسكو ميسانين مثلا تاينا إن الله شاء الله هاي ميسان كي أتكرر تي وما ركت علايس دن كأه الله شاء الله وأدين كدري ميسي هذيك هو مركي قاركود دريمية دقيقة وأنكم قناع سنة إن الله شاء الله دريمية يقولي واحد كامل قي إن الله شاء الله هدي أدري بتديني نقطنا نقول ديلي تران عافيمات كاجا كشقة عبادة نوناتي سدح القضب يوم يمسن نرشوا كم ميزان تام كل اللي ترنتو وحيهين عبادة عافيماتك يو عملك عافيماتك هو متكمدا نمعينك هو وين إلهي سبحانه وتعالى إنه من نستي وأن معك مدا نمعينك هو وين إلهي سبحانه وتعالى إنه قل ذي أما سينه من نستي ابن آدم هان إن كفى يستو عافيماتك xilliga aad caafimaadka qabto inaad ka faa'iideysato inta aan cudurku ku yimaado ku muhiim ma hubtid xilli aad xanuunsan doonto mana hubtid xilli aad ka tagi doonto adduunyada laakiin inta aad imika joogtid waad ka faa'iideysan kartaa noloshaada sidoo kale waad ka faa'iideysan kartaa caafimaadkaaga waa ku muhiim caafimaad la'aan ma shaqayn kartid caafimaad la'aan han ma yeelan kartid caafimaad la'aanna horumar ma samayn kartid caafimaadkaaga oo ilaashataa waxa weeyaan inaad ilaashatay qayb kamida ama se qodob ugu muhiimsan ama se tiir kamida tiirarka noloshaada caafimaadkaaga ilaasho waayo caafimaadkaaga wuxuu muhiim yahay inaad horumar samayso wuxuu muhiim yahay inaad yeelato han wuxuu muhiim yahay inaad noqoto qof tartami kara oo adduunyada noqon kara qof wax soo kordhin kara ka faa'iideyso oo caafimaadkaaga ilaali waayo dad badan oo maanta adduunyada ku nool waxay rajaynayaan ama ay jecel yihiin ama ay ilaayihiin inay helaan caafimaadkaada adigu haysato maanta haddii aad caafimaad haysato qaar badan oo ka mid ah dad kula qayra ama kulada qaar badan oo wax badan soo kordhin lahaa qaar badan oo maanta daafi lahaa halkan aad taagan tahay ayaa haddii ay heli lahaayeen caafimaad ayaan haysan caafimaad ay ku gaadhaan hankooga kuna rumeeyaan hadafyo badan oo ay noloshooda doonayaan caafimaadka intaad haysato waa inta kaliya aad daqaaqi karto tamartaad isticmaalayso si aad hadafkaaga u gaadho waxay ku xidhan tahay caafimaadkaaga intaad caafimaad qabto waa inta aad u dhowdahay ama se waa intaad haysato fursado aad kaga faa'iideysato noloshaada caafimaadkaaga ilaali oo ilaasho caafimaadkaaga si aad u noqotid qof gaadha horumar si ay noloshaadu noqoto nolol miisaaman oo dheelitiran waayo caafimaadku waa halka ugu muhiimsan caafimaadku waa halka kaliya ama se waa nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu ibn aadamku ka faa'iideysto inta uu haysto qodobka labaad wuxuu noqonayaa cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo abuuray inaynu caabudno ujeedka adduunyada laynoo keenayna waa tartan ah inaynu u tartanno raali ahaanshiyaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa ujeedka adduunyada inoo keenay isagoo inooga warramaya nagu sheegay quraankiisa kariimka isagoo leh wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dad badan maanta waxa haysta diiqad isku buuq iyo wareer ka haysta nolosha sababtuna waxa weeyaan inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanay u hoggaansamin awaamirtiisa ama aanay Ilaahay caabudin ama aanay haysanin diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay ahayd islaamka muslimiin badan maanta cibaadadoodii way daciiftay oo ma aha cibaadadoodii cibaadad sax ah haddii aad ka tagto mid kamida arkaanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay qofka muslimka oo noloshaadu waxa ku jirtaa cidhiidhi mana dareemaysid inay noloshaadu tahay dheeli tiran waxa dareemi doontaa diiqad waxa dareemi doontaa isku buuq ila shay cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala markasta xus Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadkiisa uu talagalay u gudo Ilaahay subhanahu wa ta'ala markasta raali gali inaad hagaajiso xidhiidhka Ilaahay Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad ku noolaato nolol bilaa diiqada nolol farxad leh nolol wanaagsan iyo nolol ay ka buuxaan badhaadhe iyo guulo badan sidoo kalena waxaad noqon doontaa qof guulaystay adduunka iyo aakhiradiisa noloshaaduna waxay noqon doontaa nolol dheelitiran oo miisaan qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa camalkaaga markaan leeyahay waxaan uga jeedaa nolol maalmeedkaaga hawlaha aad qabato aad ku guda jirto maalin kasta maalmeedkaaga aad qabanaysaa haddii uu yahay mid diiqad ku saara ood ku dareento culays badan haddii uu yahay mid aanad ku dareemin raaxo waxaa kuu munaasaba in aad samayso talaabooyinkan soo socda mar kasta oo aad hawl qabanayso waxa muhiim ah inaad focus ka saarto hawsha aad qabanayso waxa ku muhiim ah
sidoo kale inaad isku daydo markasta 40 mirir baa 45 mirir baa inaad qaadato nasasho oo ka dul kacdo hawsha aad qabanayso leedahay soo yara qaadato way taasi waxay ku saamaxaysaa inaad mar labaad hawl gali kartid oo aad firfircoonina maskaxdaada iyo jidhkaaga heli karaan markastana ogow dadka intooda badan waxyaalaha stresska ku rida ama yani marka ay shaqeynayaan waxyaalaha dadku marka ay shaqeynayaan culayska dareensiya waxa kamid ah inay qabtaan dadku shaqooyin kala wada duwan tusaale ahaan qofku isagoo ku jira hawl ayuu doonayaan isticmaalo social media taasina waxay ku keeni kartaa qofkii in aanu noqon qof shaqadiisii ka mid dhaliya oo wax soo saarkeedii kor u qaada qof ay ka baahdo ugu dambayntana dareema culays weyn taas ku keeni kartaa inuu qofku stress u dareemi karo isku day inaad isku dheeli tirtid shaqooyin maalmeedkaaga waqti naftaadana si waqti ay nasato sidoo kalena ha isku dayin inaad shaqooyin badan qabato mar kaliyaata ee shaqada kale uga muhiimsan tahay u qabo shaqanaha ka caagsin oo ka istaagin ilaa dhamaystiray saddexdan qodob aynu ka soo hadalnay cibaadada camalka iyo caafimaadku haddii aad isku dheeli tirto saddexda tiir waxay noqonayaan saddex tiir oo markaad isku dheeli tirto aad ku dareemi kartid deganaan farxad iyo inaad ku raaxaysato noloshaada u heli naftaada oo garbaxankaaga heer sare gaarsiin noloshaada kor u qaadi kara adigana hoos u dhigi kara noloshu maaha ciyaar naxliya maaha xumaan naruuray ilaahay baxshiyana qiyaano hore